muddo 4 cisho oo laga wada tashanayay siyaasada kaydinta xogaha hay'adaha dawladda Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta wasaaradda qorsheynta waxaana muddada uu socday kulankaasi ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday inta badan hay'adaha dawladda Puntland kooxaha ay isu qaybiyeen ka soo qaybgalayaashu muddada lagu guda jiray wada tashigan waxaana ay soo jeediyeen talooyin isugu jiray waxyaabo ka dhiman iyo kuwa siyaada ku ah siyaasadan muddadii 4 cisho ahayd oo aanu joognay goobta tan waxaanu ku gorfaynay ama markaas aan ku falaaqeynay siyaasadda guud hagida ama markaas ilaalinta iyo markaas keydinta xogta markaas dawladda Puntland barnaamij aad u fiican oo policy-gan ay soo diyaarisay qofka la yiraahdo Roos waxaan leenahay intii ka dhimaneed annagana waan ku darnay waxaan kala oo ballan qaadaynaa meelihii aan ka nimid iyo goobihii inaanu kaga shaqeyn doono agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland Axmed Cabdullah Tigana oo soo xiray kulankan ayaa sheegay in siyaasadani ay muhiim u tahay jiritaanka dawladnimada Puntland waxaana uu mahad celiyay dhammaan mas'uuliyiintii ka qayb qaatay wada tashigan ilaalinteeda wadanka iskale shacabka iskale qofka taas waa ugu muhiimsan tan kale oo sida maareynta masiibooyinka iyo hadii uu cyclone ama duufaan dhacdo ama dabdhaco iyo waxyaabahaasna meelaha lagu kaydiyo sida loo ilaalin lahaa xitaa in hal abuur keentaan oo idinku alla timaadaan designs sidee waxaan loo safe gareyn karaa waxaas oo dhan idinka timaado waqtigu waa kooban yahay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan quruxda badan madam Rose oo ah maaragtay great lady oo hawshan qayb weyn ka qaadatay iyadana waa u mahad celinaynaa barnaamijku waa inoo xidhan yahay dhanka kale xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland waxa sidaas si la mid ah lagu soo gabagabeeyay kulan looga wada tashanayay xogihii ka soo baxay tirakoobkii shaqaalaha rayidka ee dawladda Puntland waxaana inta uu socday kulankaasi shahaadooyin sharaf la guddoonsiiyay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay barnaamijkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Puntland oo soo xiray munaasabadan wada tashiga waxa uu mahad celiyay dhammaan ka soo qaybgalayaashii waxaana uu xaqiijiyay in barnaamijkan uu ahaa mid lagu guuleystay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa tiimamkii kala duwanaa aan magacyo u kala yeelayn ee mashruucan sharafta badan ka soo shaqeeyay runtii waxaa la odhan karaa waxay gaadheen guul aan caadi ahayn oo haddana waxaan kaloo idinku bishaaraynayaa waa guul aanay gaadhin maamul goboleedada kale iyo xataa dowladda federaalka runtii waxay inoo tahay farxad waxay inoo tahay dhiirigelin waxay inoo tahay daacadnimo waxaan ku soo gabagabeynayaa guusha aan gaadhnay insha allahu tacaala dhaqso way inoo muuqan doontaa shirkuna waa inoo xidhan yahay barnaamijyadan oo dawladda Puntland uu ka caawinayo bangiga adduunka ayaa qayb ka ah qorshayaasha lagu habaynayo habraaca shaqo ee hay'adaha dawladda Puntland maxamed saciid qoslaaye Puntland TV Garowe